xukuumadda waa la qaybsaday xamse qayb buu keenay roobowna qayb buu waxa weeye xasan shiina qayb buu keenay roobow wuxuu ka yimi garabka xasan buu ka yimi kama iman xamse raggu waxa weeye meesha keensaday waa la yaqaanaa dad aqoon-yahama ah weeye waana xukuumad kastoo lasoo dhiso daawadayaal halkani waa dunida media kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda. fadeexad weyn ayaa dul hooganaysa wasiirada cusub iyo madaxweyne xasan sheekh maxmuud. ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sheegay inuusan wax lug ah ku lahayn magacaabista mukhtaar rowow balse uu ku qasbay xasan sheekh maxmuud. xamse bare oo ah ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda xamse bare ayaa banaanka keenay inuu xasan sheekh maxmuud ka dambeeyey magacaabista mukhtaar rowow balse lama oga qorshaha uu ka damacsan yahay magacaabistani mukhtaar rowow. fadeexad weyn ayaa dul hooganaysa wasiirada cusub iyo madaxweyne xasan sheekh maxmuud. sidoo kale rowow iyo xubnaha taageersan ayaa ku wajahan koonfur galbeed Soomaaliya si uu usoo afjaro lafta gareen. aan ku bilownay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa iska fogeeyay eedeyn dhawaanahan loo soo jeedinayay kadib markii uu wasiir u magacaabay mukhtaar rowow abuumansuur oo horey xubin weyn ka ahaa al-shabaab. rowow ayaa hadda waxa uu yahay wasiir ka tirsan xukuumadda cusub uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo dood badan ka taagan magacaabista wasiirada xukuumadani cusub. xamse bare oo la tashi dheer sameeyey ayaa xubnaha wasiirada xukuumaddiisa kusoo daray mukhtaar rowow oo dhowaan xabsi laga soo daayay horena uga mid ahaa al-shabaab isagoo 2017 isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. tan iyo markii xasan sheekh maxmuud loo doortay xilka madaxweynaha dalka waxaa soo ifbaxaya in mukhtaar rowow uu xubin ka noqonayo dowladda Soomaaliya ilaalo ciidan ku filanna la siinayo si uu usoo afjaro lafta gareen. ha yeeshee lafta gareen ayaa isagana dhankiisa u safray dalka Itoobiya halkaasoo uu heshiis kala soo saxiixday madaxweynaha dalka Itoobiya. madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaana maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo ifbaxaya qorshayaasha uu damacsan yahay balse waxaa la filayaa in haddii uu xasan sheekh maxmuud sidani kusoo socdo ee la keeni doono mooshin ka dhan ah madaxtinimada dalka. qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba shacabka Soomaaliyeed oo kala jooga dal iyo dibad ayaa waxay fikradahooda ka dhiibanayaan isla markaasina walaac aad u xoogan ka muujiyeen magacaabista mukhtaar rowow oo horeyba uga mid ahaa xubin ka mid ah al-shabaab isagoona lagu xasuusto inuu horey u xasuuqay qaar ka mid ah arday Soomaaliyeed isla markaasina usoo baxaysa dalka. waa kan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku nool dalka dibadiisa iyagoo fikirkooda ka dhiibanaya magacaabista mukhtaar rowow isla markaasida eedeyn aad u xoogan ka muujiyay halka qaar kalena ay daafacayeen xasan sheekh maxmuud iyagoo oona sheegay inuu ku saxan yahay magacaabista mukhtaar rowow taasi oo ay ku sheegeen inay ka damacsan yihiin ama madaxweynaha uu ka damacsan yahay qorshe uu kaga hortagayo dagaal. ha yeeshee dadka shacabka Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaana u cuntamin magacaabistani mukhtaar rowow taasi oo maalmihii u dambeysayba dhalisay eedeyn iyo dhaleeceen loo soo jeedinayay madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo ah midka haatan haya talada dalka Soomaaliya. raba inuu wadda ku faysteeyo waxna faysto ka dhiganaya baasaboor wata wadda ku faysto arka inuu lacagta u qaadanayo iskaga faysteeyo oo iskaga shaqeeyo meelaha uu ku habhabsado raba kuwaas ma baahni. we don't want to down really mabdo wallahi billahi tullahi kuwaas inta laga yeelayo noocaasa oo wadda waxba ku kordhin inay soo galaan waa ka xaraam hooyada oo iman kartaa laakiin maamul dawlad anaaba sheegi lahaa kan masquul buu dhaqi jiray kan maxaa ku dhulku xaqi jiray kan maxaa ku istuufu ahaa meelba fadhin jiray kan nin waa xiran jiray kan wax lagu darsan male waa saaro kan caruurtiisa anaka kulligood waa sheegi lahaynba waa dad wada caaga dad horta dad fiican oo waa jiraan dad wanaagsan oo wadanka gudi dibadda wax ku bartay oo dhalinyaro oo wadanka u ciilqa waa jiraan laakiin waxa haleeyay nin masquul qodi jiray ama maxaa ku reeyay istuufa reerkiisa soo baabashay intuu boorso u soo qaatay iyo laptop bay maxamuudeen inuu fiican yahay caag biyaan gacanta ku soo qaatay sharaftii dibadda dadkii qorbo jooga oo fiicna dadkaas ka dilay dadkaas na u kaya maanta dhan hal xabo xigmada ma laga faa'iidayo mar wuxuu rabaa inuu bixishiro wuxuu rabaa siyaasad inuu ka hadlo wuxuu rabaa caafimaad inuu ka hadlo wuxuu rabaa inuu ka hadlo wadaniye wuxuu wasoo qasray mar hal xabo ka hadal xabada taqaanido takhasuskeeda leedahay mid kale ka hadlay takhasuskeeda mid leedahay ka hadal.
xukuumadda waa la qaybsaday xamse qayb buu keenay roobowna qayb buu waxa weeye xasan shiina qayb buu keenay roobow wuxuu ka yimi garabka xasan buu ka yimi kama iman xamse raggu waxa weeye meesha keensaday waa la yaqaanaa dad aqoon-yahama weeye waana xukuumad kastoo lasoo dhiso qaabkaasaa loo qaybsadaa madaxweynuhu qayb buu qaataa prime ministerku qayb buu qaataa maamul goboleedyadu qayb bay qaataan talay ku yimaadaan marka waa taladii xasan shiikh weeye xagga roobow anigu waxaan aaminsanahay prime ministerka inaan lagu degdegin waa nin cusub weeye hore uma soo shaqayn waxba kamaanaan arag afkayga aniga laga maqli maayo sababta nin cusub weeye nin dhalinyaro ah weeye lagu degdegi maayo midna ogaado ninku nin la dheera ah weeye haddii maanta xoogay la yara afduubay waxaa laga yaabaa berri inuu waxa weeye madaxa la kaco taasina waa kaftan weeye laakiin waxaanu soo aragnay xasan shiikh haddana aanu aragnaa war bal hadda idinku waxaad ku difaacdaan qolyihiinan difaacayaa bal noo sheega ilaa maalin kasta qaylimayne annagiibaa waxaadna leedihiin waxaad ku diidan tihiin wax noocan iyo qabyaalad war baashu qabyaaladna maaha jacaylna maaha nacaybna maaha wax qabad baa laga hadlayaa waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka sabaskaraabi noo saar furo gambaleelka si uu kuu soo gaaro warbixin walbo aan kusoo gudbino dunida meediya u sheergaree asxaabtaada kale si ay ula socdaan siyaasadda Soomaaliya iyo waxyaabaha ka cusub mahadsanid